waan u baahnayn waxyaabahan imika aan loo sideena daawada iyo waxyaabaha la midka ah waxa weeye deegaankan Waraabe waa deegaan aad iyo aad u ballaaran imika rug caafimaad oo kale markay noqoto waxa lagu dhow ruqsi oo 45 kilomitir loo socdo meesha labaad ee ku xigta waa Burco waa 75 kilomitir baa yara loo socdaa waxaan u baahnayn inaan naga caawisaan wax kasta aan u baahanahay haddii gaadiid loo raacan noqoto iyo haddii daawada noqoto iyo haddii kaleba waxaan salaamayaa wafdigan ballaaran oo timi bahda saxaafadda xildhibaanka gobol degmada ka soo baxay ee golaha wakiilada dhaqaatiirta noo timi ee agaasimaha iyo maamulaha nimanka cusub ee noo yimi iyo dhammaan wafdigan sharafta leh ayaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa ka bacdi waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol baan idinku soo dhaweynaynaa magaalada degmada Waraabeeye boqolkiiba boqol waanaanu idiin baahnayn waanu idin jeclayn in maanta ilaahay noo keenay maasha Allah arrintaa waa ku guuleysanay ilaahay noo keeno qoladan caafimaadka bahda caafimaadka xoolaha xanaanada xoolaha intaa kadib baahiyaha magaalada haldiinta waa naga soo dabooshay alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh waana la shaqaynaya waa inaan magaalada u dhashay oo magaalada ah iyo dhaqaatiirta kale la socotaaba qolada gobolka iyo qolada dawladda sare ee madaxweynaha wasiirka agaasimayaasha gobolada waa wada salaamaynaa dadka madaxdaas oo Allah ya isig waa salaamaynaa si wacan bay hawsha noogu soo qabteen alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh waxaanu u baahanahay walaalayaal oo aanu ka codsanaynaa dawladda madaxweynaha wasiirka cid kasta oo na maqlaysa hadalkayga maqasha degmo ballaaran weeyaan ummad ballaaranina way ku nooshahay baahidan intan hore waanu idinka gudoomanay si fiican baan idinka gudoomanay waxaan alaabtan aan noo keenteen iyo dhaqaatiinta waan idinka gudoomanay waxaanu u baahanahay oo had iyo jira lama ilaawaana gaadiidka baabuur bay u baahan tahay degmadu xanaanada xoolaha u shaqeeya oo meel kasta wixii buka ay ku gaaraan ilaa 50 kilomitir baa dadka magaalada jooga ilaa 50 kilomitir ayaa loo shaqeynaya 50 kilomitir oo isku weera baa loo shaqeynaya magaaladan marka waxaan u baahanahay hadaanu odayaashii nahay hadaanu degmadii Waraabeeye nahay hadaanu dadkii magaalada u dhashay xoolo dhaqashada ahaan nahay in gaadiidna lagu soo caawiyo oo loo keeno hay'addu loo keento wasaaraddu baabuur 50 kilomitir ee isku weerka iyo inta ka badan ba ugu shaqeyso dhakhtarku ugu shaqeeyo anagana noogu adeego ayaanu horta uga baahi badanahay talabaad baahida tan oo xigta waa ka gaadhiga weeye waxa kale aanu u baahanahay dadka abaar baa ku dhacday xoolihii oo yar baa dugaag baa ku kacay bahal dugaag la yiraahdo ayaa mariyay xoolihii suntii xoolaha waanu u baahanay suntii bahalaha waanu u baahanay xoolaha la sunayn maayo waa la daweynaya laakiin waa suntii bahalaha u baahanay markaa walaalayaal taana waa la codsanaynaa in loo raadiyo oo naloo doono haddii la helayo waayo dadka waa laga ilaaliyaa meesha farmasiyada lahayn iyo xanaalooyinka iyo dhaqaatiirta lahayn sunta waa laga ilaaliyaa annaguna waanu ka ilaaliyaa dadka cid taqaano u tababaran baanu doonaynaa inay noogu shaqayso loo keeno dadka baalahaana laga laayo wixii baahidayadii aanu u baahnayn wixii ay ka kari karayeen ay noo keeneen waanu ka gudoomanay waana ku mahadsantahay wasaaradda iyo wasiirka Siciid Sulub waxaanu leenahay wixii dhimanay naga dhinmana baahidu isma taagto in loo kordhiyo marba laga warhayo ayaanu u baahanahay dadaalka wanaagsan ee samayseen dhakhtarkii noogu keenteen dawadiina noo keenteen xanaanaduna waa xanaano shaqeynayso wanaagsan deegaanku waa deegaan ballaaran in si loogu hagar laado oo nolol shaqeeyo ayaan uga baahanahay wixii baahiyaha hore deegaanku u baahnaana odaygii ugu horeeyay iyo xogeeyay intuba way sheegeen